بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال ay asxaabta qaybtooda soo weydiiyeen iyo walaalayaasha ku xiran kanaalkan ayaan rabaa inaan maanta halkan ku duubo. Chi-square test waxa weeye laba magac bay leedahay. Test of independence waa la yidhahdaa, test of association waa la yidhahdaa, si in short link chi-square waa la yidhahdaa. Test of association marka la leeyahay waxa loola jeeda waxa weeye alternative hypothesis-ka fikradiisa waa lagu saleynayaa ahayd there is difference ama these two factors are associated with each other. Marka la leeyahay test of independence-na waxa weeye badanaa waxaa loola jeedaa waxaa lagu saleynayaa doodii null hypothesis-ka ee odhanaysay there is no association ama these two variables are independent with each other. waxba iskama quseeyaan labada factor ama labada variable wax xiriir ah iyo wax saameyn iyo wax shaqo ay isku leeyihiin ma jirto. Ayaa la isku fiirin inay xiriir isla leeyihiin. Labada variable waa inay yihiin categorical variables waa inay yihiin. Categorical variables waxaan ula jeedaa waxa weeye waa inay leeyihiin each variable waa inuu leeyahay categories. Sida tusaale ahaan haddii aan kugu soo qaado kale jinsiga oo kale Soomaaliga lab iyo dhadig baa la yidhahdaa. Daatada aad isticmaalayso ma tahay data shuruudii buuxinaysay shuruudii uu lahaa chi-square test. Cilmi baarista aad soo aruurisay ama sample collection-ka ama individuals-ka ama participants-ka aad xogta kasoo aruurisay waa inay ka badan yihiin 20 haddii ay ka yaraadaan assumption-kaas ama shardigaas shuruudii guud ee iska lahayd testigan isticmaalkiisu way violated baa la odhanayaa. So result saxa kuma siin doono after analysis. Halka haddii nagu gudubno shuruudiisa waxaynu aragno waxa la yidhaahdo iminka 24 sample weeye anigu waxaan soo aruuriyey 24 qof baan su'aalan soo weydiiyey. Hypothesis-kaygu ama research hypothesis-kaygu waxay ahayd farxadda qofka iyo badanaa waxaa isa saameeya shaqada uu qabanayo waa isku xiran yihiin. Null hypothesis-kuna wuxuu sheegayaa war qofka shaqadiisii iyo wax iska quseeya ma jiraan farxaddiisa. Marka labadaas hypothesis midkee baan runaan tijaabinaynaa. ma wax xaqiiqaba in magaranaysaa dadku shaqada ay qabanayaan ay magaranaysaa ay determine garayso farxaddooda mise waa wax iska randomly ama chance ku dhacay. Chi-square test ayaa ka jawaabaysa. Waxaynu soo furnaa analysis kadibna waxaynu galaynaa descriptive statistics waxaynu kasii galaynaa cross tabulation ama contingency table waa la yidhahdaa. Reset marka koowaad waa iska reset garaynaya wax la yidhaahdo optionada halkan ku jiray. Labadii variable aan doonay inaan isku dhufto waa kuwan mid waa happiness-ka waa farxadda dadka oo ah dependent-ga midka ku tiirsan ama ku xiran badanaa dadka kale magaranaysaa ee 24-ka ah. Waa dependent ama response variable. Social group-ka aniga laba group ay ka kooban yihiin group A iyo group B. Kuwana shaqada A bay ka shaqeeyaan kuwana shaqada B bay ka shaqeeyaan. Marka labada shaqo kale dadka ka wada shaqeynaya farxaddooda ayaan rabaa inaan qiimeeyo. Laakiinse waxa isbeddelay waxa weeye heerka farxadda magaranaysaa qof walba leeyahay shaqada uu ku jiray oo loo fiirinayo weeye wax isbeddelaya. So this is the dependent variable. Kuwanina wuxuu noqonayaa social group-kuna wuxuu noqonayaa independent variable ama predictor-kii buu noqonayaa. So kor waxaan gelinayaa wax la yidhaahdo social group waxaan gelinayaa halkaa kor aan gelinayaa rowga oo ah chief hadhow wuxuu noqonayaa chief. Social group wuxuu noqonayaa chief. Happiness-ka waxaan ka dhigaa column-ka oo tag ama joog baan ka dhigayaa. Exact-gaas inaan furo muhiim ma ahan laakiinse waxa weeye this is the test p value wax kuu sheegi doona hadda waxa weeye asymptomatic testigaas wax kuu sheegi doona marka iyada automatically way kuu dooran tahay. So inaad halkaa gasho ma baahni. Statistics saan soo furay waxaan ku dhufanayaa chi-square contingency-ga oo waan ku dhufanayaa phi-da iyo Cramer's v oo wada socdana waan ku dhufanayaa. waxaan kale waxa weeye iminka wax dana iyo heello aan ka leeyahay ma jirto. Waxaan soo furayaa kadibna cells baan soo furayaa. Observed values-ku waa check mark baa ii saaran. Observed iyo expected-ka check mark baan saarayaa. Compare column and proportions ayana waan saarayaa. oo waxa weeye column walba ama qiimo walba waxaad ka samaysaa proportion marka loo fiiriyo tirada guud ee ku jiro. Markana row iyo column iyo total ii saar and standardized ii saar
intaasoo meel markaan check mark saaro waxaan odhanayaa okay kadibna waxaan odhanayaa run ama okay. So waatan xogta la turjumayo intaan u dhow waa summary iyo frequency tables weeye. proportionadii 24 qof baan ahay waxaa soo aruuriyey here waatan ka muuqata 24 qof. marka waxaan u kala saaray social group A iyo social group B kadibna waxaan ka horgeeyay oo ku dhuftay happiness-ka farxadii oo ayana no iyo yes ahayd. marka social group A oo kale intee baa faraxsanayd oo shaqadooda ku faraxsanayd intee baase waxa weeye ka xumayd ee total ahaan inta ma garanaysayay gebigooda waxa weeye 11 saddex ka mid ah waa faraxsan yihiin 8 ka midna waxa weeye ma faraxsana. alright marka intee bay noqonayaan percentage-ka faraxsan waxa weeye 27.3 percentage-ka aan faraxsanayn waxay noqonayaan 72.7 qiimahan dhexe ee 5.5 ka ah wuxuu noqonayaa wax la yidhaahdo expected values ka noqonaya waxa weeye row total oo lagu dhuftay column total. yes ha waa kan column-kan waa 12 waa row total oo lagu dhuftay column total marka weeye 11 oo lagu dhuftay 12 oo loo qaybshay tirada guud ee sample-kaaga oo ah 24 5.5 soo baxday kana sidoo kale waxa weeye rowgeeda totalkiisa oo lagu dhuftay column-keeda totalkiisa waa ka expected value sidaas loo saaraa tiro walba sidaas baa u saaraysaa iminka halka way tijaabi ka soo soco kaas waa frequency table-kii chi-square test value marka waxaan fiirinayaa laba meelood Pearson chi-square value-ga iyo waxaan fiirinayaa p value-ga. so Pearson chi-square wuxuu sheegayaa qiimaha ah 4.19 waxa weeye calculated chi-square value baa la yidhahdaa calculated chi-square value. waxaa jira haddaba automatically culimada statistics waxay sameeyaan wax la yidhaahdo chi-square table buugaagtii waad ka helaysaa iyo google-kii haddaad ka raadsato table qoran ayaa jira oo sida set table-ka oo kale marka waxa weeye qiimayaal baa ku qoran chi-square iska leedahay. marka calculated chi-square-ka oo hadda aan soo saarno ah 4.196 iyo waxa la isku fiirinayaa qiimaha halka dee sarteedii iska gooyaan viewgeedu ayaa loo fiirinayaa kadibna waxa soo baxay waxa la fiirinayaa haddii uu ka wen yahay baa la odhanayaa chi-square value la soo saaray marka critical-ka ay ku qoran table-ka haddii uu ka wen yahay p value wuxuu noqonayaa significant so iminka halka waxa weeye chi-square waa 4.19 waan haystaa waa calculated-kii laakiinse ma aan haysto critical chi-square value-gi ma hayo kii table ku qornaa inaan soo furo mooyaane laakiinse adoon fiirin waxaa kuu sheegaya kanaa kuu sheegi karaya qiimahan inuu ka wen yahay qiimaha table-ka ku jira table-ka chi-square-ka isla yaqaano midka ku jira inuu ka wen yahay in kale waxaa kuu sheegaya p value baa kuu sheegaya p value hadduu ka yaraado 0.05 macnaheedu waxa weeye chi-square value baan wuxuu ka wen yahay the critical chi-square table value-gu ka wen yahay therefore p value waa significant chi-square-kanu asna wuxuu sheegayaa significance buu sheegayaa haddii qiimahan uu ka yaraado qiimaha chi-square-ka ee ku jira table chi-square table-ka halkan p waxay noqonaysaa mid ka weyn 0.05 oo ka weynaanaysaa. resultigeena ama conclusion-keena muxuu noqonayaa iminka waxa weeye conclusion-keenu maadaama p value-gu uu yahay mid ka yar 0.05 uu yahay the test determines that there is significant association between the happiness of the social workers and their work. shaqada ay qabanayaan dadku iyo farxadoodu way isla xiriiraan ayuu noqonayaa conclusion. yes way isla xiriiraan. there is statistically significant association ayaa jira markaad tiraahdo intaas ayaad wax furaysaa bracket p value laba shay baad qori kartaa chi-square iyo p value labadooda qortaa so waxaan soo hormarinayaa chi-square
marka xiriir baa jira hadalkaas markaad qorto yaad gudaha statistical ahaan u muujinaysaa waxaa sharciga hadalkaas macnihiisa oo xisaabtii ama softwareka inaad gudaha soo geliso halka aad soo geliso yeah between the happiness of the workers and their social group work their social group waxa weeye xiriir baa ka dhexeeya ayaad oranaysaa at the level waad sii raacin kartaa tiraahdo at the level of 5% of significance. So this is the way you should interpret when you use chi-square test analysis. Thank you so much.